kaadhka qaadan waydo ogow qofka dooranayso kaadidad qaadacayso labada midna kuma qiraayo waxbana uma qaban karaysid haddaad kaadhka qaadan waydo waxaynu ognahay inaynu ku guda jirno kaadh qaybinta labada gobol gobolka Maroodijeex iyo gobolka Togdheer oo ay si fiican uga socoto kaadh qaybinta kaadhka waxaynu ugu talagalnay in lagu galo doorasho kasta oo ka qabsoomi doonta dalka Soomaaliland gaar ahaan doorashada madaxtooyada ee soo socota rajaynayna inay qabsoonto November 13 hadii Ilaahay ka dhigo oo ah doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo doorashooyinka dambe ee ka dambeeya tawakiilada iyo golaha deegaanka kaadhkan qaadashadiisu waxay muhiim u tahay intaas oo doorasho oo ka dhici doonta dalka ayaa lagu gelaya ma aha kaadh xuseynayo oo kaliya hal doorasho waa doorasho kasta marka dadku waa inay sida ogaadaan kaadhka maanta la qaataa uu la soconaya qofka waligiiba inta uu doorasho uu ka qayb gali doono hadii Ilaahay ka dhigo sida wadeed qof kasta oo qaata kaadhka waa inuu xafidaa oo meel dhigtaa si uu ugu tala galo inuu ku codeeyo doorasho kasta way noo soo gabagaboobi doontaa hadii Ilaahay ka dhigo 30 bisha sideen rajaynayno labada gobol kaadh qaybinteedu muddo yar baa ka hadhay muddadaa yar waxaan rajaynaynaa oo dadkaan ku boorinaynaa ku wacyigelinaynaa inay qaataan kaadhkooda codbixinta waxa kale oo ku xiga oo imka qorshaheedii aanu ku jirnaa labadii gobol ee ku xigay Sool iyo Sanaag oo ay ka bilaabmi doonto qaadashada kaadhku 12 bisha 8 hadii Ilaahay ka dhigo labada gobol waxaanu leedahay u diyaar garooba waa Sool iyo Sanaag qaadashada kaadhka codbixinta bisha 8 12keeda oo ay ka bilaabmi doonto deegaanadeeda oo dhan marka laga yimaado 13 goobood oo hore looga qabtay loogana qaybiyay kaadhka oo ahaa xeebaha Sanaag wixii inta ka harsan dhammaan way ka bilaabmaysaa labada gobol ee Sool iyo Sanaag waxaan markaa dadku si sheegaynaa inay ku sii tala galaan iswacyi geliyaan cid walba ka qayb qaadato bulshada loo sheego si loo qaato si fursad loogu helo qaadashada kaadhka labadan gobol ee hore ay ka socotana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dadka intii qaadatay iyo intii ka hawlgashay qaadashada kaadhka codbixintaba sidii wanaagsaneed uga hawlgaleen inta yar ay noo hadhayna waa in hore loo qaataa waxaan bulshada u sheegaynaa in aanay kala garan waayin ama ay ku mashquulaan labadan kaadhka codbixinta iyo kaadhkii muwaadinka dad badan waxay isaga khaldan labada kaadh waxaad arkaysaa dad badan oo ka oranaya kaadhkii codeynta dooran lahaa lacag baa la iga doonaya marka kaadhkani maaha kaadh lacag lagu xidhayo waa kaadhkii codbixinta kaadhka kale muwaadiniinta yaan lagu khaldamin qofku wuxuu u doonan karaa dawladda hoose ama si caadi ah mar walba uu fureeyay kaadhka qaadashadiisa kan dhalashadu laakiin kan kale codbixinta waa muddada yar ee kooban ee goobaha la dhigay oo kaliya wax lacag qofka lagu xidhayana ma jirto sida dadku ha u kala fahmaan labadan kaadh inay kala duwan yihiin kaadhkan waa kaadhkii codbixinta maaha kaadhkii muwaadinka ee dhalashada shirkan jaraa'id maanta komishiku qabtay wuxuu ka hadlayaa qaybo fara badan muddadii ay socotay labadan gobol ee Maroodijeex iyo Togdheer kaadh qaybintu si fiican bay hawshaasi u socotay alxamdulillah rabbil caalamiin meel fiican way maraysaa muddadii ay socotay waxa dhacday dhacdooyin xisbiyada qaranka qaar ka mid ah oo aanay u dhaqmin qaabkii lagu heshiiyey ee lagu kala saxiixday in ay u dhaxayso habdhaqanka kaadh qaybintu komishiga doorashooyinka qaranka iyo xisbiyadu guddiga anshaxa ee la shaqeeya komishiga doorashooyinka qaranku wuxuu aad iyo aad ugu kuurgalay dhacdooyinkii ka dhacayay labada gobol muddadii ay socotay kaadh qaybintu wuxuu soo gudbiyey guddiga anshaxu soo jeedin uu soo gudbiyey komishiga doorashooyinka qaranka oo wixii dhacay waxay caddeeyeen oo aan idina ka murmaynin in xisbiyada wadani iyo kulmiye ay ka sameeyeen labada gobol wax khilaafsan wixii lagu heshiiyey komishiga doorashooyinka qaranku wuxuu go'aansaday inuu u yeedho madaxda labada xisbi labadii xisbi baa guddoomiyeyaashoodii iyo rag kale oo xisbiyadooda ka tirsan oo ka agdhawaaba waxaan ugu yeedhnay xarunta komishiga doorashooyinka qaranka waxaanu u sheegnay dhacdooyinkii dhacday inaanay waafaqsanayn wixii lagu heshiiyey isla markaana ay u eg tahay
olole ka soo hormaray xilligii loogu talagalay kaasoo dhaawac iyo dhibaato u geysan karaya habsocodka kaadh qaadashada ee ay wadaan komishinka doorashooyinka qaranku iyadoo saddexda xisbi qaranba hore noogu ballan qaadeen inay si fiican ula shaqaynayaan guddiga doorashooyinka qaranka waxaa halkaa muuqatay in dhacdooyin dhowra oo khilaafsan wixii lagu heshiiyay dhacday komishinka doorashooyinka qaranku wuxuu qaatay go'aamo uu u gudbiyey iyagoo qoraal afkana uga sheegay oo ah in lacag ganaaxa lagu sameeyey in digniin rasmi ah loo gudbiyey digniinta rasmiga way ka culus tahay ta lacagta waxaa kaloo komishinku go'aansaday oo qoraal ugu gudbiyey xisbiyada in labada gobol ee soo socda ee kaadh qaybinta xisbi waliba uu ku iman karayo oo keliya 5 gaari waxaan la ogolayn wax ololo ah waxaan la ogolayn wax calamo ah waxaan la ogolayn wax stickers ah waxaan la ogolayn wax soo baxa si aynu u dhamaystirno qaadashada kaadharka oo ay ku dhacdo qaabkii aynu ugu talagalay loo qorsheeyay komishinku ay ugu talagaleen waxaanu mar labaad ku wargelinaynaa in xisbiyada qaranku ay si fiican u waafaqaan oo ay ugu dhaqmaan wixii ay saxiixeen aynu ku heshiinay waxa aan ku soo gabagabaynayaa qaybteedan in aanay dhicin wixii hore u dhacay iyadoo komishinku uu go'aansaday haddii mar dambe ay dhacdo waxaasi in ganaaxu intii hore uu ka cuslaan doono ummadana waxaan ugu baaqaynaa shacbiga Soomaaliland laftoodu inaanay ka qayb qaadan wax ololo u eg ee ay ka qayb qaataan qaadashada kaararkooda codbixinta maanta ay kaarkooda qaataan ninkay doonaan ha u heliyaan ninkay doonaan isaahdaan uu ku wanaagsan yahay maamulka dalka marka gacantooda ugu heliyaan laakiin maanta yaanay cidnaba ugu helin oo aanay ugu soo bixin olole iyo rabshado iyo qaylo ummadda lagaga jeedinayo kaar qaybinta waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba ka codsanaynaa xisbiyadu inay hirgeliyaan oo ay ku dhaqmaan anshax la kala saxiixday insha Allah waxaan rajaynayaa si fiican ugu dhamaato intaan oo hadhay wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh inta wad ka yara cilmiyo بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين marka hore wuxuu komishinku maanta shirkan jaraa'id u qabtay inuu cadeeyo waqtiga la galay doorashadii oo inoo soo dhawaatay iyo kaar qaybintii oo sii gabagaba waxaanu nahay dal ku dhisan dastuur iyo xeerar haddaan xeerka iyo dastuurka aynu dhiganay aan la ixtiraamin lagu dhaqmin min madax ilaa mijo dal noqon mayno waxaanu halkan digniin culus uga diraynaa maanta xisbiyada qaranka oo aanu leenahay wixii dhacay way dhaceen uma dul qaadan doono in xisbi qaran uu jabiyo xeerkii iyo dastuurkii waliba xeerarka doorashada xeer number 20 waanu idin wada siinay koobiyadiisii waad haysataan akhrista darsa fahma lama ogolaanayo wax xeerkaa jabinaya iyo xeerkii habdhaqanka anshaxa ee aynu samaysanay ee saddexda xisbiyo komishankuba saxeexeen bishii Abriil 2017 wixii dhacayba way dhaceen hadda wixii ka dambeeya arrintu way ka sii adkaanaysaa waananu u digaynaa labada xisbi ee hadda khilaafka sameeyey ee aan dhageysan digniinihii komishanku u mariyay hawada waxaanu halkan uga mahadnaqaynaa oo mahad leh oonu leenahayna sidaa kuwada xisbiga ucud oo run ahaantii dhageystay u hoggaansamay xeerkii anshaxa isla markaana digniinihii aanu diraynay ka istaagay oo si asluubaysan gobolladii iyo degmooyinkii ka socotay kaar qaybintu u taga iyaga oo aan wax astaana iyo wax calana iyo wax stickers oo ku saabsan olole oo ah xisbiga ucud aanay samayn waanu idin mahadnaqaynaa waa sidaa marka tartan la galo ama marka imtixaan la qaadayo qofna wuu ku dhacaa qofna wuu ku faa'iidaystaan wad ku faa'iideysteen waanu idinku mahadnaqaynaa waxaanu ku adkaynaynaa xisbiyadoo dhanna in laga joogsado in la iska hor keeno dadka in laga joogsado in ereyo xanaf leh ama qabyaaladaysan ama beelaysan lagu galo kaar qaybinta in olole la sameeyo waynu
geli doonaa way dhowdahay waanu idin sii dayn doonaa idin fasaxi doonaa taa suga oo sabir u yeesha shalay waan u yeedhnay labada hogaamiye iyo nimankii ka agdhadhowaaba waxaanu kaloo la kulannay oonu halkan ugu yeedhnay wasiirka madaxtooyada oo isagana aanu kala hadlaynay waajibaadka saaran xukuumadda waxaanu leenahay waajibaad baa idinka saaran siday u dhaqmayaan iyo siday u hirgeli lahayd habkan kaadh qaybintu waxaa kaloo waajibaad idinka saaran yahay amniga inaad sugtaan qaranka guud ahaan iyo dalkaba waxaanu xukuumadda iyadana aanu ka codsanaynaa in ay xeer number 20 raacaan wuxuu ina farayo olole laguma geli karo gaadiidka dowladda ee calaamadda akhtarka leh shaqaalaha dowladda waa u dhax iyaguna ma geli karaan olole la arkayo qaranka ayay u dhaxeeyaan TV-ga qaranka raadiyo hargeysa labadaasuba qarankaa leh iyadana waa in wax laga siiyaa ama saddexda xisbi u sinaadaan warbaahinteeda intaana waxaanu faraynaa dowladdu inay daba gasho oo ay ilaaliso amniga iyo nabadgelyada iyo dhaqdhaqaaqa xisbiyada waqtigeenu gelaynaa waa waqti lagu soo dhowaanayo doorashadii taa waxaanu ka filaynaa waanaanu isla qaadanay inay dowladdu ka soo saarto digreeto saxa laysagana yimaado tala qaran waxaan taa uga gudbayaa mid ku socota fariin adag oo ku socota dadweynaha muwaadiniinta waxaanu leenahay kaadhkiina qaata waa xaq dastuuriyood leediin kaadhka qaadashadiisa kuma xidhna inaad ololeysaan sharciguna idima farayo inaad calamo qaadataan inaad istiikara qaadataan inaad waxshiidaan inaad nabadgelyada ka hor timaadaan qofkii ka hor yimaada waxaanu ka codsanaynaa booliiska iyo ciidamada qalabka sidaba hadday dibadda tahay ilaalinteeda booliiskana gudaha inay ilaaliyaan oo wixii ka hor yimaada anshaxa habsami u socodka doorashada iyo kaadh qaybintaba inay qabtaan waajibaadkoodana ka gutaan uma dul qaadanayno haddaanu nahay komishinkii qaranka wax xanafa ama ka weecinaya kaadh qaadashada iyo doorashadaba jidka ay haysato wax ka weecinaya dulqaad uma lihin hadda laga bilaabo taana ha la ogaado waxaan kaloo fursaddan uga faa'iidaysanaynaa xeebihii sanaag 13 goobood ayaa cimilada daraaddeed raacay gobolka awdal iyo saaxil markii aynu kaadh qaybinta ka samaynaynay iyaga waqtigii dheeriga ahaa ee 14 cisho ahaa waxaanu sanaaduuqdii intii aan la qaadan u dhigaynaa degmada ceelaf weyn iyo degmada ceeri gaabo labadaa meelood bay woolayaan meelahaan u astayno halkaasay ka soo doonan doonaan dadkii aan qaadan kaadharka ee degan 13 goobood ee xeebta sanaag wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi